cunto waa wax kasta oo la cuno si jidhku u helo tamar nafaqo iyo korriin cuntadu waxay ka kooban tahay walxo kala duwan sida borotiin dufan carbohydrate faytamiino iyo macdano kuwaas oo muhiim u ah caafimaadka jidhka iyo maskaxda cuntooyinka ugu fiican waa kuwa leh nafaqooyin dheellitiran kuwaas oo wax ka tara caafimaadka maadaama uu jidhkanu u baahan yahay macdano iyo faytamiino waxaa muhiim ah inuu qofku cuno cuntooyin kala duwan cuntooyinka waxaa loo qaybiyaa laba qaybood oo muhiim ah cuntooyinka dabiiciga iyo cuntooyinka la warshadeeyey cuntooyinka dabiiciga waxaa ka mid ah midhaha khudaarta hilibka kalluunka iyo caanaha cuntooyinka la warshadeeyeyna waxaa ka mid ah buskudka cabitaanada sonkorta leh iyo cuntooyinka la kariyey ee wax lagu daray cunto caafimaad leh waxay caawisaa jirdhis difaac xoogan iyo tamar sare ugu horreyntii khudaarta iyo midhaha waxaa ku badan faytamiinada macdanta iyo antioxidanti oo ka caawisa jidhku inuu la dagaalamo cudurrada midhaha sida tufaaxa liinta babayga iyo muuska waxay kor u qaadaan difaaca jidhka khudaarta sida kaarootada basasha iyo baradhada macaan waxaa hodan ku ah faytamin c iyo faytamin a waa tan labaadee cuntooyinka qaniga ku ah borotiinka sida hilibka digaaga kalluunka ukunta iyo lowska waa ilo wanaagsan oo borotiin ah taasoo muhiim u ah dhisida murqaha iyo difaaca jidhka waxaa intaa dheer cuntooyinka dufanka wanaagsan leh sida afakaadhada saliid saytuunka lowska iyo midhaha geedaha waxay leeyihiin dufan caafimaad leh taasoo hoos u dhigta halista cudurrada wadnaha sidoo kale saliid saytuunka iyo toontu waxay hoos u dhigaan xanuunada wadnaha iyo bararka jidhka ugu dambeyntii biyaha iyo cabitaanada dabiiciga ah sida shaaha cagaaran iyo cabitaanada liinta leh waxay jidhka ka caawiyaan inuu sunta iska saaro